السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا ku xiran channelka dadweynaha ee YouTube. Xayawaanada siiba kuwa quuta hilibka ayaa ah kuwa khatar badan oo aadanaha dhibaatooyin ba'an gaarsiin kara. Ujeedadaydu ma aha inaan xayawaanaadka nacabahay isla markaana aan sifa fool xun siinayo. Waxa haboon haddii aad dhaqanayso xayawaanada kuwada khatarta badan ee quutal daruurigoodana Ilaahay uga dhiga hilibka amaba si aad jeceshahay inaad ku booqato goob ay ku xareysan yihiin in ay lagama maarmaan tahay inaad ogaatid habdhaqankooda iyo waxyaabaha ay necab yihiin iyo sidoo kale waxyaabaha ay jecel yihiin inta aanad ku dhaqaaqin ka hor. barnaamijkeena maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa dhacdooyin la yaab leh oo ka dhacay goobo xayawaanada lagu hayo. dhacdooyinkaasi oo badankoodu yihiin kuwa khatar iyo cabsi xambaarsan. intaana barnaamijka u guda gelin ka hor haddii uu muuqaalkani ku qanciyo ha hilmaamin inaad videoga like saarto. sidoo kale haddii aad ka mid tahay daawadayaasha ku xiran channelka dadweynaha hubi inaad channelka subscribe saartay haddii aanad saarin weli haatan saar si uu muuqaal walba ku soo gaadho. imikana ahaynu gudagalo mawduuca ku xidhnow channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir. haddii aad jeceshahay inaad u daawasho tagto goobaha xayawaanaadka lagu hayo mararka qaar naftu waxay jeclaanaysaa inaad si fiican ugu dhawaatid si aad si fiican oo saafi ah ugu aragtid. isla waqtiga ayaa haddana waxa dhici kara inay xayawaanadaasi khatar ba'an ku soo gaarsiiyaan iyadoo ay sababi karto inay xayawaanadaasi kugu soo baxsadaan amaba si aad ku siibatid oo ugu dhexdhacdid goobta ay ku xareysan yihiin xayawaanadaasi sida ku dhacday wiilkan yar oo kale. wiilka yar qoyskiisa ayaa waxay go'aansadeen inay Afrika u yimaadaan daawashada xayawaanaadka waxayna tageen goob ay ku xareysan yihiin ayda nooca loo yaqaano ay dibadeedka kuwaasi oo aad u tiro badnaa. haddaba meeshii markay tageen ayaa goobtu waxay lahayd deyr lagu tiirsado ay dadku ka daawadaan. hase ahaatee ka yar maadaama uu gaabnaa waxa uu ku yidhi kor i qaad si aan u arko oon idinla daawado. hooyadii ayaa kor u qaaday si ay si fiican ugu daawasiiso. hase ahaatee gacanteedii ayuu ka baxsaday waxauna ugu dhexdhacay aydii kuwaasi oo ka yaraa si kadiisa u googooyey iyadoo uusan shaqaalihii ku soo gaadhin. halkii ayuu ka yaraa ku dhintay hooyadiina ay ku laabatay gurigii iyadoo uusan wiilkeedii la socon. Bengi waa dub nooca loo yaqaano polar bear isagoo yaroo agoon ah ayaa waxa laga helay Alaska waxaana loo qaaday oo lagu xareeyay goob xayawaanaadka lagu xanaaneeyo. ugu dambeynna goobtaasi ayuu ku dhintay kadib markay ku dhaceen in ka badan ilaa 20 cudur oo kala duwan. haddaba xayawaankani muddadaasi uu goobtaasi ku sugnaa ayaa waxa uu geystay dhibaatooyin waxshinimo ah iyadoo markii ugu horreysay sanadii 1980 mid ka mid ah raggii shaqaalaha goobtaasi ka ahaa uu si xun gacanta uga qaniinay. sidoo kale sanadu markay ahayd 1994 ayaa goobtaasi waxa uu daawashay mid koox Australian ah iyadoo mid ka mid ah dadkaasi uu jeclaaday inuu si fiican ugu dhawaado goobta xayawaankaasi ku xareysnaa si sawir fiican looga qaado. hase ahaatee Bengi arrinkaasi ma uusan cajabin iyadoo isla markiiba wiilkii ku dhigay bowdada balse nasiib wanaag kadib markii si xun madaxa looga garaacay dubkii waa iska sii daayay wiilkii. balse xayawaankani intaasi kuma uusan ekaan. usbuucyoon kadib maalintu dhibaatadaasi geystay ayaa haddana waxa uu qabtay isla meeshuu wiilkaasi maalintii ka qaniinay oo kale ayuu haddana waxa uu ka qaniinay wiil kale oo dhalinyar ah oo sakhraansana iyadoo wiilkaasi uu gaarsiiyay dhibaato aad u ba'an. ninkani waxa uu ilaaliye ka ahaa goob libaaxyada lagu xanaaneeyo goobtaasi ay dadku u daawasho imaanayeen. hase ahaatee ninkan ayaa dadka waxa uu u muujin jiray inuu libaaxyada kalsooni buuxa ku qabo iyadoo waqtiyada kaamirada laga duubayo oo ugu dhex geli jiray goobta ay ku xareysan yihiin si uu dadka u tusay inuusan ka cabsanayn. hase ahaatee libaaxyada ayaa waxay u muuqdeen in aysan ku qanacsaneen waxyaabaha uu ninkani ku dhaqaaqayay. haddaba maalin ay soo booqdeen qolo saxafiyiin ah ayaa waxa uu waraysi ku siinayay meel aad ugu dhow goobta ay ku xareysanaayeen iyadoo ninkani markay libaaxyada ku soo dhaqaaqaan uu ka turkayay markay kasii noqdaanna uu ku dhawaanayay goobta. libaaxyada ayaa 2 jeer ku soo booday 2 jeerna waa ay la gafeen. hase ahaatee mar saddexaadkii ayaa waxa uu ku mashquulay waraysiga uu bixinayay isagoo meesha aad ugu dhawaaday. libaaxyadii mid ka mid ah ayaa ku soo booday oo gacanta kaga dhigay. hase ahaatee waa laga gaadhay inkastoo dhaawac xun u geystay gacantii jabiyeyna lafaha. wiilkani waa wiil ka soo jeeda dalka India waxay isku dhaceen oo isqabteen xaaskiisa. arrintaasi oo sababtay inuu nolosha adduunyada naco go'aansadeen inuu isdhaafiyo nafta. hase ahaatee habka ugu fudud oo isku dili karo ayaa waxa uu arkay inay tahay inuu tago goob libaaxyada lagu hayo agtiisa say libaaxyadaasi u dilaan. goobtii ayuu tagay lacagtii lagu daawanayna wuu iska bixiyay. markuu ku dhawaaday ayaa intuu dharkii oo dhan iska saaray waxa uu isku dhex tuuray meeshii ay ku jireen libaaxyadu iyadoo xaaladahaasi oo kale ay libaaxyada u ahayd fursad weyn oo ay raadinayeen. ninkii ayaa isla markuu saa ugu dhex boday libaaxyadii ku soo boodeen waayna ku bilaabeen. hase ahaatee shaqaalihii ayaa ka soo gaadhay kana gaadhay iyagoo ay dhaawacyo xun gaarsiiyeen. hase ahaatee arrinta la yaab kale ayaa waxay ahayd marka uu meesha sii galayay uu dharka iska saarayay waxa arkayay in ka badan 10 qof oo shaqaale ah iyagoosan isla markaana waqtigaasi wax ficil samaynin ilaa uu meesha ugu dhex booday. ku xidhnow channelka dadweynaha subscribe saar oo ku soo biir.